السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقعي وعباس سعيد جامع. maanta halkan waxaan idiigu diyaarinay fadhi yar oo qurux badan isla markaana fadhigan ay nagala soo qayb galeen dhalinyaro kala duwan isugu jirta aqoon-yahano iyo suugaan-yahano. barnaamijka waxaan ugu talagalnay in aanu bulshada u soo gudbino baabab kala duwan isla markaana ay nagala qayb qaadanayaan dhalinyaro abwaan ah halkan idiigu soo bandhigi doonaan murtidooda kala duwan. sidoo kale barnaamijka waxaan ka marnayn iyana sheekooyin kale oo xiiso leh oo aan ugu talagalnay iyana inaan bulshada yacni wax ugu soo gudbino fariimooyin kala duwan amaba entertainment. insha Allah barnaamijka waan guda galaynaa. waxaan rabaa inaan si khaas ah ugu soo dhaweeyo abwaanka daada yar ee ayaan dhalad isla markaana isagu ku ah yacni si khaas ah aanu martigelinay barnaamijka ugu martigelinay aan ugu talagalnay maasooyin iyo gabayo kala duwan madadaalooyin kala duwan sheekooyin kala duwan inuu idii soo daayo isla markaana waqtigeena idiigu raaxeeyo ee aad ku daawanaysaan videoga. abwaan waxaan rabnaa maanta maadaama aan kugu soo dhaweynay barnaamijka isla markaana aad nagala qayb qaadanaysid in aad la hadashid bulshada oo bal wixii aad u soo diyaarisay ama wixii aad ugu soo talagashay aad u soo gudbisid adigoo waliba ama laaqsiga jacaylka loo yaqaan oo kulli dhalintu ay aad xiisayso. marka waxaan filayaa gabayga oo horeeyo insha Allah wuxuu noqon doonaa gabay ku saabsan suugaan dhalinyarada oo ku saabsan laaqsi ama dareenka khaaska. gabaygan munaasabad buu leeyahay dabcan kulli toole oo maqasheeno ninbatu ka helay gabdhaha hodan ku sheega iyo suugaanta hore ee muraayad baa inanta soo kama marqaan gooyo cala cilmi afiraya lahaayeen nin walba hablaha markaas ogto ayuuba kulay calaamad saara. marka gabaygan wuxuu ku saabsan yahay gabar Soomaaliyeed oo qaaliya oo hableeni boqolka halaad laga bixin jiray iyo baarqabka iyo maadhiinka laha xawayaan hadal tire badan ku sii raadin gabaygan inuu soo gudbinayo insha Allah. gabaygan wuxuu dhahayaa dumar kala akhlaaq suuban oo kala ilwaad roon qaar baan indhuhu door bidayn aragtidaymood ee adse ubaxlamood baa tihiyo aayada qurux sida sagal arooriyo iftiin aad dunisiyay ama ooga waa bariga iyo eegan caleen weyn leh indhaha u laacdaa walaalunka ku jecel in maraalka iyo dheemanka iyo lul arliga deeqa jawharad indhaha jiidatiyo dhaaya aragooda adaa iga mudan oo dhaha waxa raacayn gubi ashqaraarka muuqaagu waa lama ilaawaana ruux aynigaaga ama dhalin hooyo idaleeye tabtiyo xishoodkaagu waa dhaxalayeeyaad adduunyada fardaha oo dhan iyo ibil wixii jooga kolay siigta ubax wiil tahay iyo ayrad iyo muuno sinaadkaaga idilay ma jiro raysin loo ule idilkeedba Soomaaliya haddaan wada ilaaleeyay hablaha aynigaaga markaan kor iyo hoos eegay midaan in abtay ku agdhigaba dhaayahan arage abaskuul bartire reerugaas ururka reed diini saacad musahar laga buuxiyay ee madani aadkaasa iyo ubaxa reesugule iyo ilbacinaashe abaskuul bartire ilig nimanka yaaliya bahgari uunka maxamuuda garad faarxa uluufkaas ee eebbe farasiyay waaryahanka dhoodidega iyo ugaasiye ruuxeeda ilig nimanka yaaliya bahgari uunka maxamuuda garad faarxa idilkood haddii aan maro naaga ka ilaaqday adigan ilwaad kaala baxay oo nishaaqsaday adna ruuxday igar haween waa amur culus gabayga koowaad kaasu ahaa. ما شاء الله آدي آد بوجو مهتسيه أبوانك داء ذير إسلام مركان هاي كسر برقنا سمرتدى آد كأمعان إدقيه نكسر دعسي أبوان هدي أنور سؤاله تسكر راعيه وحين أجنها أدون كمان إن هير لو جاري وحلو يقانو أخرسك يقرالك سيب هدان أخرسك آد وسيابه ما دام أن مرتي سمية آتهاي مرتي فربضنا سمية ميلا فربضنا كجبيه halka aan ka hadlayo ee ah wax akhriska max gabayo ah wax maanso ah wuxuun aad ka tiriso bulshada hadda aad u soo bandhigi kartid ma jiraan. abaas aad baad u mahadsan tahay
طبعا horta Soomaalideena waxa la dhahaa oral community ama bulsho hadal waaga horena booska waxa inoogu jiray akhriska iyo qoraalka gabyaaga haddana qudheeda dadku in badan kuma baraarugsana akhriska iyo qoraalka marka way jiraan gabay akhriska qoraalka ka hadlaya oo aad u dhiirigelinaya insha Allah gabaygaasna munaasabad buu lahaa isaguna kadib markaan arkay wiiqanka iska daba jooga iyo dadku saysan ugu baraarugsanayn akhriska qoraalka ayuu gabaygaas urtay wuxuu dhahayaa akhris iyo qoraal baa dunida lagu ildoogtaay waa sida irmaanku u dhashay iyo madal la eegtaay ka ama wada qaliyo aalad iyo dooge ilbaxnimadu waa taas hadii awrta loo rariyay inaguna armiga sanadan ku istareexnaaye ilmaada real dhaaf waa inayeen fiir udgoon rasuulka la yiri goosh iqro gare ee ergeygii jibriil aha kolkuu ceega ku ihaanay akhriska amiin loo jirabay su'aal adag ma afartaasi ila biyele ma u ekeysiyay aw muuse iyo soo sidii khaliif oog ma ka cadaynin eray kalena waa halan bulshooy idin ogeysiyay gurigii adduunka ba ka helay ilaahan duulaya waa akhris iyo qoraal waxay ku intifaaceen idinkuna ogaado iyaga ka daras qaat Israa'iil midkii 15 sano ahaan gaaray uluf dhiganaya waa akhriyay idil tacliintii idinkuna ogaado iyaga ka daras qaat qoraalkii la inagu xantaan wali ag joognaaye asaageena ururtii oo ka cadowgii afaqayse idinkuna ogaado iyaga ka daras qaat oo horumar raadsiyo cilmiga uunka ku ordaayo ilbaxnimana gaari aqoon ku wada naasho oo afilxiyo dhalinay bulshada ubaxa Soomaali gabaygaasna kaas waa akhris qoraal ma sha Allah kolba waxaan u maleynayaa bulshada way maqlaysaa waxa aad ku hadlaysid isla markaana qiimeeyni inaanay ku dhinay ma filiya abwan mar labaad iyo mar saddexaadba ku soo dhaw barnaamijkan kuugu talagalnay isla markaana aan ugu talagalnay inaad bulshada uga faa'iideysid wali barnaamijkan ku guda jirnaa halkan waxa dhinac fadhiya dhalinyaro aad u shacni wanaagsan iyaguna doonayay inay bulshada la hadlaan waxyaabo kala duwan oo soo bandhigaan runtii waxba yaanan gabayga idigu sii wadwadin iyo musuugaanta waxaan rabaa inaan xoogaa suugaanta idiga dhex saaro oo dhalinyarta qaybaheeda kala duwan aan idigu gudbiyo microphone-ka si xoogaa relax ah aad u qaadataan ninka la yiraahdo Cabdiqaadir Jaamac Ahmed AJ wali dhalinyarta marka uu ku jiro aad u furfuran isla markaana madadaalooyin kala duwan soo gudbiya waxaan jeclaan lahaa hal sheeko oo aad u macaan isla markaana aad ugu talagashay inaad kaga qoslisid dadka ku daawanaya inaad noo soo gudbisid ku soo dhaw aad iyo aad baad u mahadsantahay Cabbaas runtii waxaan u maleynayaa kidis baad iga dhigtoodee madashuna waxay noo ahayd madal runtii aynu sugu nimiyo wax walba laga filan karayay haddana anigu aad uguma sii talagelinoo wax niyadda markaa igu sii jira ma jiraan kulli darajo xoogana waad siiso waxaad tii dhalinyarada aad uga qosliya comedian-kana kulli aad aniga uma ka hele uma maleynaynin dadku dee runtii aad ay u sii danaynayaan kuwayga marka iska qosolada dad bulshadu isla wadaagto hal sheeko baan noo soo qabanayaa waxa la yidhi nin la odhan jiray Tuxa ayaa jiro carab weeyaan ninku kadib waxa dhacday habeenada kamid ah ayaa sidii caadiga ah nolosha wuxuu iska ahaa faqiir buu markaa la soo wariyay kadib isagoo fuqaradii ku jiro faqriga dhiisha u cushay ayaa waxa dhacday in habeenada kamid ah uu seexday markuu seexday wax lacagna ma haysanina wuxuu ku riyooday in lacag $99 la bariyo oo la leeyahay orniyow Tuxow $99 naga qabo halka dollar dhimanna waan ku daraynaa ama halka ka dhimo waan ku daraynaa bulshadu in badan bay dul taagneedo war Tuxow naga qabo maya ilaa soo dhameystaan ma qabanayo adigu markii dambe waxa dhacday in ninkii uu indhaha kala qaaday isagoo bulshadii sidii u diiday indhaha markuu kala qaaday mise waaba hurdaybo cidna lacag kuma bariyeen 99 daay ku shilin cid kuma bariyeen markaasuu intuu sidii soo jabsaday iska keenay 99 kaaba iyo u keenay 99 ma 99 bajiree markuu lacagta marka aad iyo aad bay mahadsantihiin sheekadaasaan jeclaa inaan wallahi billahi niyow anagu de bulshada ma qiyaasi karno laakiin intii meeshaan ku fadhinay aad baan nooga qoslisay شوحدو سجاشني سجارك تسكت قبسان لها ملها الرياضة وكهر لا مركب الرياضة كلها بتروح سجاشني سجارك سكت كأنها دارتها لكن ده مركب عيد الله سيري الرياضي وتكتر ما شاء الله كاسوح عبد القادر جامع أحمد AJ أو نين دلنيرة أو سنكون دلنيرة تكون قبل كسر إسلام كان jaamacadaha dhameeyay ee wadanka gudihiisa kaga shaqeeya xirfad ay wax ku barteen
waxaa kaloo dhinacayga fadhiya nin la yidhaahdo maxamuud axmed xasan oo ah isna nin dhallinyarta ka mid a isla markaana ah ardayda haddeer jaamacadaha insha allah dhammayn doona maxamuud bulshada haddaan adiga kugu soo dhaweeyo adiga category kuma doorayo oo kuma dhahayo waxaas noo door laakiin waxaan doonayaa bal inaad bulshada wixii aad jeceshahay la wadaagtid aad baad mahadsantahay saaxiibkay cabaas siciid jaamac cabaas goldan abwaanku xigmad badan baan ka faa'iidnay ee jiigu naga qosliyey anna si qurux badan baad noogu daadihinaysaa xagga kameramaanka ayuub aad buu shaqadiisa u haystaa maasha allah maxamedna way sugaysaa talow tiisu noo soo socotaa niyow anigu erayo yar baan kaga qayb qaadanayaa awan haddii erayo yaroo heesan kaga qayb qaadanaya haddaan khaldo hay qabsan yaa anigu abwaan maihi fanaan baalkiina gabyaana maihi laakiin xoogaa yamahan xagga jacaylka laga yarhayo yamahano waxaan doonayaa erayo yaro jacayla inaan halkan ku soo bandhigo marka erayadan waxay dhahayaan waa wax dhowr kooban wey tuduc quruxdaadan dhammayska akhlaaqdaadan dhiibsoon ee diinta dhaqanka ah lagu sugay dhammaanteed ilkahaagan dhuuxa dibnahaagan dhuxusha ee hadal dhammaysiyo dhiibaayo weedhaha dhaqankaaga dhowrsoon waxaa tahay dhammaanta gabar rabbigay dhammaystiray oo aan dhaliil iyo lagu hayn wax dheeliya kolkan adig ku dhowraa jacayligu dhammaadaa gebigayguwa markaan yada arko buu jacaylku buu igu tagaaba jacaylku dhammaanteed marka maalin kasta hortaydan bay soo martaa wax aan ku dhahana ma garto eray aan u sheegana ma garanayo hortaydana way martaa bal idinku bal ka soo xal un keeno bal sida gabadha lagula hadli lahaa bal keena halkaasaa la rabaa inaad keentaan hadduu allaydmo ama asxaabtuba dee xagga commentiga xalkaaha noogu soo qoran hadduu allaydmo xalku deniyaho waxaan filayaa weli heesta inaadan iyada horteeda ka dhihin waxaan hubi lahaa anigu fikir ahaan haddii intaa hadda aad horteeda bulshada aad ka hortiri in ay horteeda haddaad ka dhihi lahayd inay horey kaa raaci lahayd iyada laftarkeeda haddii ay barnaamijka daawanayso gabadha la sheegayo saaxiibkeenna maxamuud oo caashiqay in ay bal iyadu dee way maqashay waa kaa u duuban tahay heestii inay horey kala soo xidhiidho isla markaana ay naga yarayso culayska ah halkeena barnaamijku waa iska gabagabo waxaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka inaanu intaa barnaamijkan maanta idiigu soo koobno inta barnaamijkan mid ka duwan ama mido ka xiiso badan insha allahu tacaala idiisoo diyaarin doono waxaanu idiiga tegaynaa salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu